السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan ku qaadan doonaa course liida personal financial planning. darsigan wuxuu ka hadlayaa sida loo qorsheeyo ama loo maareeyo ama loo maamulo maaliyadda shakhsiga ah. halkan kaga hadli mayno maareynta maaliyadda dhinaca ganacsiga ama waxa loo yaqaano businesska, sidoo kale maareynta ama maamulidda ama qorsheynta maaliyadeed ee dhinaca dowladaha kagama hadlayno. kaliya waxaan ku qaadan doonaa personal financial planning. dariskan wuxuu ka koobnaa doonaa ilaa iyo 5 chapter oo kala duwan oo chapter walba uu leeyahay qaybo hoos yimaado. chapterka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa introduction to personal finance ayaan ku arki doonaa ilaa iyo 8 qaybood hoos imaata chapterkan. horeysa introduction to personal financial planning, ahmiyadda uu leeyahay in maaliyad la qorsheeyo, sidoo kale financial planning processka la maro ayaan ku arki doonaa. ilaa iyo 8 qaybood ayuu ka kooban yahay. chapterka labaad waxaan ku arki doonaa personal income planning, sida loo qorsheeyo dakhliga qofka soo galaya, qaabka uu qorsheyn lahay. chapterkani ilaa iyo 4 qaybood ayaan asna ku arki doonaa. waxaa jiro chapter saddexaad, chapter 3 ama cutubka saddexaad, isna aan ku qaadan doono personal expense planning, sida qarashaadka qofka loo qorsheeyo. chapterkan waxaan ku arki doonaa ilaa iyo 8 qaybood ayaan faahfaahin doonaa ama chapterkan saddexaad ee coursekeena personal financial planning. chapter afraad ayaan isna ku qaadan doonaa coursekan oo la yiraahdo personal budgeting planning. chapterkan wuxuu inta badan diiradda saarayaa qaabka qofka uu miisaaniyad ama budget uu degsan lahay. 9 ciwaan oo kala duwan ayaan ku qaadan doonaa oo ay ugu muhiimsan tahay ama ugu muhiimsan introduction to budgeting, income identification, expense tracking, setting financial goals. ilaa iyo 9 qaybood kala duwan ayaan chapterkan asna ku arki doonaa. chapterka ugu dambeeyo ama 5aad waxaa loo yaqaanaa personal financial risk management, sida loo maareeyo khataraha maaliyadeed ee dhinaca shakhsiga ku imaan kara. waxaa ugu horeeya introduction financial risk management, types of personal financial risks, risk management processka la maro ayaan arki doonaa marka khataraha la maareynayo. risk management strategy la isticmaalo ayaa jirta. a role of insurance in risk management uu ku leeyahay caymiska oo khatarta u yareyn kara ayaan ku arki doonaa. waxaan arki doonaa wax loo yaqaano emergency fund. sidoo kale waxaan isla eegi doonaa legal and ethical consideration, qaybta ugu dambeyso case study and example. waxaan rajeynayaa in wax badan aad ka faa'iidi doontaan. waxaan isleeyahay qofkii sida ay tahay darsigan u qaata in uu wax badan uu ka faa'iidi doono, hanaankiisa ama qaabka uu maaliyadiisa ula tacaamulayaana badan iska bedeli doonaan.